مسؤولين كترسن حماس ayaa sheegay in dhawaan ay dooranayaan qofka bedeli doona hogaamiyihii kooxda Yaxya Sinwar oo ay Israa'iil dishay Khamiistii hore. Saraakiisha Xamaas ayaa sheegay in Khaliil Haya oo ah sarkaalka ugu sarreeya Xamaas ee jooga meel ka baxsan Gaza in loo arko inuu yahay musharaxa loo badinayo inuu booskaasi buuxiyo. Khaliil oo fadhigiisu yahay dalka Qatar ayaa hadda hogaamiya wafdiga Xamaas ee wadahadallada xabad joojinta ee u dhaxeeya Xamaas iyo Israa'iil. Mas'uul ka tirsan Xamaas ayaa TV-ga Al Jazeera u sheegay in kooxda Xamaas ay u badan tahay inay qarin doonto qofka noqonaya hogaamiyahooda cusub ee ay dooran doonaan sababo amni dartood. Kooxda Xamaas ayaa sidan oo kale samaysay sanadkii 2003 kadib markii Israa'iil ay dishay hogaamiyihii Xamaas ee xilligaas Allah u naxariistay Sheekh Ahmed Yaasiin iyo Dr. Cabdicasiis Al-Rantizi. kooxda Xamaas ayaa loo badinayaa inay doorato hogaamiyahooda cusub bisha Maarso ee sanadka soo socda. balse inta laga gaarayo waqtiga waxaa maamulka Xamaas sii hayn doona sida la sheegay guddi ka kooban 5 xubnood. sida la qiyaasay guddigan ayaa kala ah Khaliil Al-Haya, Khalid Mashcal, Saahir Jabbaariin, Maxamed Darwiish iyo madaxa golaha shuurada iyo shakhsiga shanaad oo aan wali la shaacin lana aqoonsan. Khaliil ayaa la wareegay mas'uuliyadda inta badan siyaasadda arrimaha dibadda ee kooxda Xamaas. geerida Yaxya Sinwar Allah u naxariistay ayaa timid 2 bilood kadib markii magaalada Tahraan lagu dilay hogaamiyihii hore ee kooxdaas Ismaaciil Haniya. Sinwar ayaa lagu sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 7 Oktoobar, waxaana lagu sheegaa magacaabistiisa in Xamaas ay uga dan lahayd fariin gaar ah oo ay u direysay Israa'iil. bishii Luulyo wadaxaajoodyadii xabad joojinta ee Israa'iil iyo Falastiin ayaa hakad galay, waxayna dad badan aaminsan yihiin in Yaxya Sinwar uu caqabad weyn ku ahaa heshiis kasta oo xabad joojin ah maadaama uu ahaa shakhsi mayl adag. inkastoo la dilay Yaxya Sinwar, haddana sarkaal sare oo ka tirsan Xamaas ayaa sheegay inaysan waxba iska bedelayn shuruudihii ay Xamaas ku ogolaan lahayd xabad joojinta iyo sii deynta maxaabiista Israa'iil. Xamaas ayaa weli ku adkaysanaysa shuruudeeda ah in Israa'iil ay si buuxda uga baxdo Gaza, in la joojiyo colaadda, wareejinta gargaarka bini'aadanimo iyo dib u dhiska dhulka dagaaladu aafeeyeen, kuwaas oo ah shuruudaha Israa'iil si cad u diiday, iyagoo ku adkaysanaya in Xamaas ay isdhiibto. mar wax laga weydiiyey mas'uul sare oo ka tirsan Xamaas baaqa Israa'iil ah in Xamaas ay hubka dhigto ay isdhiibto. mas'uulka Xamaas u hadlay ayaa ku jawaabay sidan: suurtagal maaha inaan isdhiibno. waxaan u dagaalamaynaa xorriyadda dadkayaga, mana aqbali doono inaan isdhiibno. waan dagaalami doonaa ilaa inta aan ka ridi karo xabadda u dambaysa iyo inta askariga u dambeeya ay nafi ku jirto. si la mid ah Yaxya Sinwar, dilka Yaxya Sinwar waxa uu ahaa mid ka mid ah khasaarihii ugu weynaa ee soo gaaray kooxda Xamaas tobannaankii sane ee la soo dhaafay. Israa'iil ayaa shirqoolle ku dishay inta badan hogaamiyaashii iyo asaasayaashii Xamaas. haddana kooxda Xamaas waxay muujinaysaa inay adkaysi u leedahay wax walba, isla markaana inay heli karto hoggaan cusub oo halganka kooxda sii wada. dhimashada hogaamiyihii Xamaas kadib waxaa su'aalo la iska weydiinaya masiirka maxaabiista Israa'iil ee lagu haysto Gaza iyo cidda mas'uul ka noqon doonta ammaankooda iyo ilaalintooda. afhayeen u hadlay Xamaas ayaa sheegay in kooxdoodu ay awood u leeyihiin sii haynta iyo mas'uuliyadda dadkii ay ka soo qafaasheen gudaha Israa'iil.